السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي قالقة وإذن سلامي دمان ميل والبو الدنيا ذا كجوكتين إلهي ها إذن حفظ الله إذن بركيه أولاد باري الله نوغا ديغا نعموينك إلهي نسيني كو شكري الله نوغا ديغا إلهي إرساقة دواسحة نوغا ديغا انت حنوصلنا إلهي ها عافية انت عافيمات كيستنا إلهي ها أسياديو فضلا هدي أكو عصوبتاي channel كينا هدى بنتي مختار سبسكرايب لايك شير comment nagu caawi dabcan cod walaalahayga qaaliga caaw waxaan rabaa qisooyinka iiga barateen mid ka mid ah inaan idin la wadaago qisadan waxay ku dhacday wiil Kuwaiti ah oo lagu magacaabo Naadir wuxuu dhahay magacaygu waa Naadir ismi Naadir cimri 29 sano xaqaqti kulli xilmi waana muwaddaf mutaallim magacayga Naadir ala dhahaa 29 sano jira riyooyinkooyga dhan way ii rimoobeen ma sha Allah tabaaraka rahmaan واشقيا متعلمنا واه يعني جامعي وحسو برتي اقونيهان marka wuxuu dhahay waxaan ku caajisay nolosha oo iskaabulanimada hooyada iyo walaashay la noolahay abuuya tawafo dhahay Allah yarxamo aabihii waa dhintay Ilaahay u naxariisto marka waxaan go'aansaday yiri inaan guursado bas waa niyeesto dhahay inaan guursado bas mu ay bint يعني جبر والبماها جبرت نهيدة كجرت وحاوى ودهي ما شاء الله تبارك الرحمن وحاوى ودهي جبر جمال كذا أنا لو وصفين كرين يعني أقرح بدن قرح ذا أنا مت أنا شيكين كرين وحاول دهي إن أصحابتي إذا أنا يرد عن صاحب كنا وحان له يري قررت إني أودع عزوبية يعني وحان عن صدق إنا مع السلامة إسكابولني مو مركا وحان له يري طلعوا يا قطعة ما كعربتها وحاول بحيو تجاين ما أكتها وحليهن قطابين وحلا رهو ناقو قبلها وصو اختار وحاسليهن مركو حولها ما قطابة ذا أتجا مسه هو يضيع لا تشتها وحنقو عن صدقها إنا هو يضيع لا تشتو عن رهو هو وحان ربا جبران جورسدو ما نربو ده فاميلي جبر مرة يعني المأذير المأبتي قرابة ومربو waxaan rabaa dhahay gabar oo aniga baciid iga ah oo iga fog laakiin quruxdeeda ma sha Allah bas hal mido iloobay ma dhihin gabar akhlaaq wanaagsan asaga waxa la dardartay oo ka dhaadhacday inuu helo gabar qurux badan marka wuxuu yiri hooyaday waxay tiri abshir aniga igu halay gabar le waxaan ku keenaa marka waliga adiga saas hadaan dhahay khalaas hooyaday waxay tiri aniga igu halay ana ku raadinay إلهي أمركيس وحور دهي جبر أو ولا شيء إسيقانان أو حد هذا وحوجة شيء كيسي إنه أول الكي أنك ربو وحونا دهي جبر أو فاميلي أمر بي جبر هلا يسوع أختاره جبر قروح بدل مالي دقنت هاي أنا كو أقانواي أو محلها بنت العائلة أو جبر لي يقان أو ما شاء الله أنا إذن الماماي خلاص مركا وحالو كيني صور جبر aad u qurux badan sawirkeeda hooyada loo keenay hooyadiisa loo keenay hadii loo keenay wuxuu dhahay waxay tiri Naadir ala tusa wuxuu dhahay ahad al-ayyam yawm min al-ayyam anoo shaqo ka imaaday walaashay waxay tiri tacaal waxay tusto dhahay gabar le ma sha Allah quruxdeeda ma aqdar awsafo dhahay yani ma aqaani waxa ku tilmaamo xataa oo aad u qurux badan oo sawirkeeda ay ii keento dhahay تستي إيش رأيك هذا البنتي هذا مركز محور ويري يمكن خيال وايو رهتن وحلاقة يا با حقيقة إني سسان إهان ما تصور كل اللي بقول حي مركز هذا مايا أنا هرت مسوا أركن لكن قبل صاحبنا صور كذا إيه كانت وتجينا وصو برنينا أنا أذيك هرتها برنا يدب ملها وكاسو جعرينا وصو أركا لكن هرت أذيك مكوكن عسى عجبتك البنت وحول هاي 100% وعي عجبس يعني بقول كيف بقول واقو قنعي اوكي وحيد هذي خلاص هويدي وحا اسراعين ودهي ولا شيء اسراعين قبرتي غرغودي تageen قبرتي غرغوده هدي تageen hooyadeed lay u tagayaan markaan aabaha ma loo tagaayo wuxuu dhahay gabartii gurigeeda tageen markay guriga tageen waxa waa la soo dhaweeyay si fiican loo soo dhaweeyay waxa la yiri gabadha waa la idin baraa marka ugu horeyso wiilkiina sawirkiisa ina keentiin waay
si oo gabadhana loo tuso hadduu qanciyo ahla wasahla gabartii waa la idin tusaa haddii laakiin uu qancin waayo mac salaama allah macaakum qalaas waxay dhaheen walaalkays maxaa la naadir wuxuu dhahay walaashaya sawirkayga hayse mobilkeeda laga soo bixiyay gabadhiyaa la tusay qalaas waxay tiri khalaas waa soo salaamaa caailada dadka imaadeen waa soo salaamaa marka gabadhiyaa qaxwo loo soo dhiibo waxaa layidhi soo salaan hooyaday iyo gabadhii iyo isha waxaa is soo arkeen walaashay gabadhi way qancisay waa soo noqdeen oo yidhi aanoo hee sugila aan waxaan dhaho yidhi haa bashari markaasaa waxay dhahdo yidhi gabartii horta waa soo aragnay sida aad sawirka ku aragtayna u qurux badan tahay marka laakiin hal mushkiladaa jirto maxaa waaye mushkiladda waxaa waaye adi sawirkaagaa la tusay waxay dhahday ma i qancinin waa naxoo dhahay aniga nadaraadka oo qariib aha walaashay aan ku fiiriyo dhahay si xuna u fiiriyey markaasaa waxay dhahdoo yiri maxaasaa dhan ugu xanaaqee caadi waaye gabarta adi hadday ku qanciso daruuri ma ayna adi qanciside ma iska saysiin ma sheekaysani tafaahun ma idin dhex marin markaase waxaan dhahoo dhahay qalaase ajal haddee aniga aana cajabinin kole ida ani waa i cajabisay insha allah ibn alxalaal kalena ilaahay ha u sahlo waa istaagoo dhahay laa tacaal amsax macaaga i dhahdoo yiri waa kula dheelaaye gabarta waa cajabisay waana soo salaantay bacdi yoomeen aabaheed aa lagu ballamiyey waa u tegaynaa waay hay meherka meeqa waay meherka waxaa waaye 40,000 markaasaa yacni gabarta hooyadeed iyo hooyaday la kusoo heshiiyeen oo dhahay meherka khalaas bacdi yoomeen wuxuu dhahay 2 maalin kadib anigii iyo walaashay iyo waxaa israacnay iyo hooyaday israacnay aniga waxaa lay geliyo dhahay qolka fadhiga oo nimanka hooyaday iyone walaashayne qolka fadhiga naagaha aa la geliyay wuxuu dhahay adoogiyaa marka subxaan allah adooga wuxuu yidhi awal ma aan arkay maba ku irtaaxinbo yacni ma irtaaxtalo ma adriyo dhahay sheekaba wuxuu iiga bilaabo dhahay kamtaa khudraatib maxaa la dhahay sheeg macaashkaaga meeqa waaye mushaar meeqaa kusoo galo maxaa ka shaqaysaa maxaa qabataa wuxuu dhahay yacni damaaco waxau dhahay sheeko kale oo maadiye ahayn ma ka sheekeynayo yacni fuluus low ku waashay lacag meeqaa haysataa meeqaa heshaa meeqaa qaadataa mushaar markaasaa wuxuu dhaho yidhi alxamdulilah calaa nicma waa dhaqanahay aniga wax iga halaysan male insha allah aniga gabartaadana waa i qancisay sawirkeeda markaa arkay waxaana rabaa inaa is aragno nadar sharciya inaa is aragno oo isa salaano teeda kaleetane anigana anoo xaqiigiya ay aragta maadaama sawirkayga la aragta anigana iyadoo xaqiiqe ah aa arko markaasoo adoogi wuxuu dhahay sheekadii maba bedelooyabo shiilna wuxuu dhahay naga dhaaf gabarta sheekadeede adiga lacag meeqaa dhiibee markaasoo dhahay sidii aan ku heshiinay maxaa ku heshiinay dhahay ani adiba hadda layna soo ka horeysay maxaa ku heshiinay 40,000 maanoo meerka min gaalagoo dhahay 40,000 wuxuu dhahay gabartayda ani waa ku siinaa waana kugu nikaaxa calaa sunnata allah wa rasuuluhu milkada bacdi yoomeen waaye 60,000 haddaad inta la imaanina 60,000 qayraa isku ognahay aniga xariim gaalooli xariim ani shaqo kumaliyo dhahay naagaha waxay dhaheen yacni hooyo iyo gabadha hooyadeed iyo walaashay waxay dhaheen 40,000 ku heshiina wax 40,000 liiraa ma jiro maafi mushkilaan dhaho yiri waa ogolahay bacdi yoomeen 2 maalin kadib waxaan keenaa 60,000 gabarteen waa laygu meherinaa maalinka mulkada oo qatiibsanaayo okay wuxuu yidhi alxamdulilah rabbilcaalamiin yoomeenka bacdi waa imaanoo dhahay gabartii waa laygu meheriyey waa la isiiyo dhahay 60,000 waa layga qaadoo dhahay gogasha saasta u fadhiisan gabarta layguma nikaaxin oo dhahay markii lacagta layga qaaday khalaas bacdi 6 shuhuurne arooski waaye yacni 6 bilood kadibne aqalgalki waaye okay wuxuu yidhi horta maalinkii gabadha la sheekaysanayay oo aan meherka iyo waxa ku heshiinayna adooga aan la sheekaysanayay waxaa ii imaatay oo dhahay gabartiioo shaah wadaa imaatay yacni waa is arkaynaa ma ogtahay aniga iida nadar sharciya naga dhexayso waxay soo fadhiisatoo dhahay aabaheed agtiisa waa salaamoo yiri iidana waa i salaantay aniga waa naadiraan dhaho yiri markaasay tiri waa ogahay sawirkaaga arkay
wuxuu yiri laba kelmaha markaan dhihi maagaba gabarta adooga le dhab dhahaayo aniga ii soo jeeso ani ila hadal khalaas waxyar ka bacdi wuxuu dhahay idkhali jawwa gabarta waaba la kiciyo dhahay ala kulli xaal wuxuu yiri maalmo kadib adi gabartii markii la isiiyay oo leegu mehriyay oo 60,000 aan dhiibay oo gabartii lambar aan kala qaadanay wuxuu yiri xalaashayda way hadda macnaha gurigoodana ugu tagi karaa waa la hadli karaa waa la sheekaysan karaa adigu wuxuu yiri hal bil camal telefoonkeeda wuxuu yiri waa waca mashquul waay mashquulkay ka soo baxay waa ila sheekaysanay wax badan markay ila sheekaysato adi saacada sheekaysanayna nolosha ka sheekaysanay dad saaxiib oo hadda isu kaansanay camal u sheekaysanayna wuxuu yiri bil ka bacdi adi gabartu waa iga xiisa dhacday mashquul waay dhalinyaray raacay yani wiilal ma ahan gabdhay israacayaan asxaabteeda ma joogto bil kadib waxay ii soo dejiso dhahay ishtari li siyaara baabuur iigad aan ku socdo markaas oo dhahay tawanaas la daleeba ani adiga aan ismehersanay korme baabuur gadow la gaaray maya aniga asxaabteed dhan baabuur reey wataan mushwaar ayaga la igu wadaan shaaleeya aadeyna istiraaxa aadeyna wareega aadi lahay baabuur ani aan leeyahay raba ilaahay hana gaarsiiy baabuur waa ku gadaahe qalina nitazawaj awal marka guri dagno oo isguursano waxa artu waa ku sameynaa maya idhaahdo yiri adi ilaahay amarkiisa wuxuu dhahay maalmo kadib adi bil camal markaa saas u sheekaysanayna ikhtilaaf leena soo dhaxgalaayo dhahay gabartii ani wax la isku qabsanayna waxa saan rabaa la ileedahay muddo kadib oo dhahay ilaahay amarkiisa waxa dhacday waa u diido dhahay baabuur korta baabuur mamnuuc waayaan dhaho yiri ma ku gaday laakiin aniga wax la waxa u baahan tahay waa ku sameeyna awal aqal galno suuq iyo wad shopping ii sameey marka suuq aniga iida aan wadaay walaalkeeda la socdo dhahay muhram oo aniga muhram waa u noqon karaa oo dhahay sababta waa qaba aniga waa leegu mehriyay balse ma la ogolo yiri aniga kaliya inay raacdo ana walaashay ila socdo iidan walaalkeeda la socdo suuq waxay rabto waa ugu soo gadaa illa lagu dhex jira maahan anagoo kaliya is arkayno anagoo kaliya telefoon le ku hadlayna waxaa dhacday oo yiri adi muddo 3 shuhuur oo dhahay adi bishii ugu horeysay si fiican aan u sheekaysano wixii ka dambeeyay mashquulkeeda badan xataa marka aan risaalo kala hadlaayo ciyoomi ii soo jawaabayso ma shakiin oo dhahay horta wax shaki ima galin waxaa dhacday yiri ileen gabadha waxay leedahay safxa qaas ay leedahay oo ii sheeg snapchat-ka iyada isticmaasha safxa qaas ay leedahay oo wax qaas ugu jiro maalin maalmaha kamid ah oo dhahay ilaahay amarkiis aan guriga sadmada ugu weyneed markay ugu dhacday aan guriga imaaday oo dhahay guriga hadaa imaaday waxa imaaday oo dhahay hooyaday iyo walaashay oo is ag fadhiyaan oo daanka qof walba dhamanka gacanta ku haayo markaas waxaan dhahay isaayir ishfiik qaar markaas waxa la dhahay tacaal shuuf ani markii hore wuxuu dhahay horta markii bishii ugu horeysay ee iga gaagaabsatay bilihii dambe iga gaagaabsatay labada bilood oo dambe aan waxaan dhaho yiri walaashay saan talama ahane daa'iman mashquul waa telefoonkeeda message da u dira ciyoomi ii soo jawaabaysa si dhaqsan ii soo jawaabayso waxa laga yaabaa saacad kadib inay furto message-keega eesay wax u jiraan markaas waxay dhahday gabdha ay saaxiibo yihiin aan gabar ka aqaana gabartaasan salfada dhan weydiina wixii jiro qalaas soo weydiiyaan dhaho dhahay ilaahay amarkiis wuxuu yiri ani walaashay waxay iigu maqneedo yiri wixii jira inay ii soo ogaato waxaaba imaado dhahay maalinkii dambe iyadoo hooyaday iyo walaashay daamanka heestaan oo yaaban yihiin oo mobile ay ku fooraraan maxaa idinku dhacay waay tacaal shuufa la dhaho dhahay maxaa arkaa subhanallah wuxuu yiri markaan arkay telefoonka ii dhiibeen sawirada wiilal iyo waxay ku dhex jirtaa oo dhahay gabadhii qatiibadeeda aniga iigu nikaaxsaneed wiilal iyo gabdho maxaa la dhahaa isheeg shaalay istiraaxo dharka ay wadato muxtasham ma aha yani ma asturna dharka ay wadato ana ka xishoonayo dhahay walaashay inay ku labisato ama gabar xataa aniga oo isheeg walaashay oo kaleete inay ku labisato aan ka xishoonayo dhahay banaanka inay la aado anaga wuxuu dhahay gabdhaheena waa asturayn kulli cabaayada lay ku wada baxayaan waa yaabay oo dhahay maxaa jiro dhahay marka aniga aan gabadhaan raba inaan kaligay la kulmo la ii diidayo walaalkeed la daba dhigayo oo haddana saan maxay tahay wuxuu yiri anoo dhag la qabta lahayn xanaaqa boqolka imaraay aan waxaan dhaho yiri keen احفظ الصور يعني محل هاي الشيء كحفظ موبايل كاجا إينا صوتور
haddii la isoo tuura iidan ku dhufto dhahay khaar ee idhahdo yiri lees macasab ashfiigaan dhaho yirsaan maxaa ka wadaa maxay tahay sawiradan markaasay waxay iigu jawaabto dhahay horta kow waa isku naxdoo yiri laakiin markii dambe waxay dhahday aqaarabi waaye dadkan maxaa lahaa isheeg waxaa isku nahay ilma adeeradey waaye qaraabaan nahay ma fahante hal maalinayna ahayd oo shaaleey istiraaxiya ah isku raacnay saas mi ahaa okay waayahan dhaho yiri ilaahay amarkiis ani telefoonka waa iska damiyo dhahay waa ka damiyey khalaas aada u xanaaqsanaay marka waxaa is dhaho yiri laxdad qadab intii wax kasta aad kugu samayn lahayd yani intaa xanaaqsantahay intaa wax kasta samayn lahayd iska aamus waxaa dhacday oo dhahay waa xanaaqiya waxaa is dhahay xanaaqa intuu ku hay waxbaa halaynin iska seexo khalaas waa iska seexdo dhahay subaxi shakil caadi ani shaqadeyda aaduu dhahay casirka markaan kasoo noqday anoo moobeelkii wado aan gurigooda u tago dhahay anoo jawaalkayga wato yani sawiradii soo diyaariyay aan gurigooda garaacay nasiib wanaag aabihii iga furow dhahay markaasoo idhaha haa naadir keef xaalag ma jirtee kaale ma fiicna anigee kaale qolka fadhigaan galnay sawiradiiaan tusay waxaan dhahoo yiri gabartaada 60 kun oo iga qaaday gabartaada 6 bilood kabacdi arooska waay arooska dhan 3 bilood ka dhiman saan mee u dhaqmee waay markaasaa waxaan dhahoo yiri adoog wuxuu dhahay qof xanaaqsan oo xanaaqay isku naxay oo iska dhigay gabartii u wacay soo qaylinayo yaa fulana tacaali maxaa ka wadaasaan ceeb waxishoonay matid markaasaa waxay dhahdoo yiri yaa abuuy waxaan waxaa waaye wax faalsi ah waaye wax leesu keenay waaye wax xaqiiqo ah ma aha aniga waxaan oo guriga iska joogo dharka iska gashan aan lay sawirkayga gabar saaxiibnahay aan u diray iida sawirkayga iyo sawirka nimankan isku soo dhajisay waxaan dhahoo yiri xalay maxaa i dhahday aqaarabikayga waaye dadkan way ii dhow yihiin asxaab yani qaraabaan nahay faamiligay ka tirsan yihiin shaaleya aadne haddana adooga saas maa leedahay markaasoo wuxuu dhahay laa gabadhayda maasha allah waxaa waaye wir gabar akhlaaq leh waaye gabar oo saas u dhaqmaysa ma ahan waxaan wax been oo laga sameeyey waaye mar kalena ma u noqonayso markaasaan waxaan dhaho yiri yaa cami wax ma kuu sheegaa adiga iyo gabartaadaba waa igaadeen ma fahante saan aniga ma rabo gabartaadana waa kuu furaa haddee saas toho wuxuu dhahay adooga oo anagana sadaqaynin oo dadka waxaa kasoo aragtay ama kasoo maqashay noola imaanaysid haddaba iska fur keef oo furaa dhahay 60,000 kaygana lixdigay kor markaasoo dhahay cirka carab la gaar marka wuxuu yiri المشكلة aniga dhibaatada i haysataa waxay tahay dhahay safxadii ay soo dhigdhigayso waxaas waa la xadafay yani waa snapchat ka meesha qaybteedii waa la tirtiro dhahay safxadii meesha waa laga bixiyay oo wax cadeena ma haystiyo dhahay halkii gabar oo noo soo ogaatay oo sawiradaas keento oo walaashay ka keentayne way diiday oo dhahay daa maxkamad la kori lahay cidaan inay shaahid noo noqoto ee noo marqaati furto marka wuxuu yiri aniga dhibaatadaas ay haysato 60 kun layga cunay gabar akhlaaq leh aniga ma dhihino yiri markii hore gabar qurux badan aan ku waasho dhahay gabar akhlaaq leh ilaahu igu irsaaq ma dhihino dhahay dhibaatadaas ay haysato marka asxaabteyda qaaliga ana waxaa jecleystay aniga qisadaas soo arkay inaa idin la wadaago wax kasta inaa idin la wadaaga jecelahay aad